السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Elliott Wave Analysis YouTube channel. taariikhdu waa 3 bisha July 2021 maalin wanaagsan janagalayaal. dabcan waxaanu joognaa chartska euro dollar ama euro USD qof walba sidoo u yaqaan. waxaan isla eegi doonaa insha Allah maanta short term-ka ama 1 hour-ka lacagta euro markii lagu sarifayo dollarka. markii lagu sarifayo dollarka xaaladeedu waa sidee. dabcan 1 hour-ka euro jihada waa bullish sababtoo ah goordhow ayaa waxaa dhamaaday cycle soo bilowday 25 May. dabcan qaabka ku dhamaaday sida inooga muuqata waa qaab impulse ah. euro ugu yaraan waxay u baahan tahay reaction 3 waves ah in kor loo soo yara qaado. dabcan waa short term-ka. haddii aan big picture ka tagno sida ciwaanka aan ka hadlayno maanta ee muuqaalka aad ku soo aragteen, macquul miyay tahay ama euro markii afraad miyay dhici kartaa ama ay daciif noqon kartaa markii lagu sarifayo lacagta dollarka. dabcan sidaan ognahay euro 7 bilood ee la soo dhaafay waa ay dropping gareynaysay ama waa ay daadanaysay markii laga reebo inay xal yiraahdaa conductor yar ama reaction yar ama bounce ay soo sameyso, laakiin jihadu bearish ayay ahayd. dabcan sida ka muuqata chartskan ama article-kan inta soo gelinay, this chart waa 11 January sanadkan bilowgiisii. waqtigaas wixii ka dambeeyay anaga euro bearish ayay noo ahayd. dabcan sidaan ka warqabno anaga waxaan bixinaa forecast ama analyze beariska forex-ka iyo commoditiska. bear walbana taako ama tilaabo ayaanu la soconaa si daily ah. jihada suuqa meesha ay tahay ayaan memberskeena fursadaha suuqa uga sheegnaa inay jihada ka baartaan. dadku waa labo mid: in maalin kasta qofku uu soo kaco oo fursad suuqa uu ka helo. waa sidee dadka qaar aaminsan yihiin. qofkan wuxuu aaminsan yahay maalin kasta inuu soo kaco oo asagoo waxba ka warqabin oo chartisku uu eego uu maanta iska sell gareeyo euro USD, haddana uu berito le soo buy gareeyo, haddana saa dambe uu sell gareeyo. nidaam noocaas ah dad ku jira ayaa jira. marka waa qaabka ay u badan yihiin dadka. anaga waan ka duwannahay oo dadkaas ayaga maxay eegaan candle-kan maanta socda intuu u socda si aan u raaco. laakiin anaga maxaanu eegnaa suuqa intee ayaan loo raacaynin. marka koowaadba waxaan ogaanaynaa euro USD ama sidii January oo kale aan ogeyn in la buy gareynaynin, soo maaha. markii aan ogaanay in la buy gareynaynin kadib ayaan waxaan dhahnay okay, jihada waa bearish, soo maaha. leen waxa ku soo bixaysa haddii euro bullish looga faa'iideysanaynin in jihadu bearish tahay. kadib bearishkan sideen uga faa'iideysanaa su'aalaha ay imaanaysa marka. kadib ayadana waxaa la yiraahdaa aan fursadihii iyo waxyaabihii kale ka baranaynaa. taas waa mid. marka euro from January anaga bearish ayay noo ahayd. alaaba anagana waxaan ka warqabnaa ama aan u ognahay laga heblaayo in waqti cayman ama maxaa la yiraahdaa muddo intaas la eg aanan sell ma ahan wax kale loo gelaynin ilaa isbedel uu suuqa ka dhaco, isbedel weyn. sidaa darteed weli anaga euro bearish ayay noo tahay. dad ayaa laga yaabaa ralligan yar wixii ka dambeeyay 21 July suuqa hadda soo yara kacay reaction-kan inay u qaataan euro inay bullish tahay ama ay galeenba, soo maaha.
ama hadda kadib ay rabaan inay sii bay gareeyaan waxweyn ma wax boqol bib oo kale oo kor u soo yara kacay waa iska simple naga ahaan connector ayuu inoo yahay ama xiriiriye euro markii koowaad ay soo dhacday inta lagu jiray sanadkan ama 7 bilood ee ugu dambeysay waa 6 January first draw waa 6 January second May why not 25 February markii saddexaad waa 25 May markii afaraadna hadda ayaan filaynaa dabcan lacagta eurada hadda waxa lagu sarifaa boqolkii euro hadda wuxuu u dhigmaa $118 iyo 9 senti oo kale meelahaas waa iska 119 hadda soma waxaan rajaynaynaa marka ugu yaraan in sare loo soo qaado because sanadkan bilaawiisii halkii ama boqolkii euro waxa lagu sarifayay $123 maantana $118 soma waxaad ogtiin todobaad bilanti lagu jiro in $5 ay hoos soo dhacday wali dhicitaan ayaa inoogu dhiman anaga ahaan hadda ugu yaraan waxa la soo gaarsiinaa 120 waa la soo yara qaadayaa meelahan oo kale la keenayaa insha Allah idan ka filayno meelahan oo kale again waxaan u sii rajaynaynaa inay sii daadato waqtiyada soo aadan waxaan ugu fadhinaa insha Allah in laga hoos marsiiyo boqolkii euro $117 all right dhicitaanka afraad waa mid kana sheegayna marka macquul miyay tahay ha waa mid ka filayna insha Allah it's possible ala this cycle inuu sidan ku dhamaaday oo ka madax banaanay waxyaabahan dhan hadda socda this one new cycle uu yahay ee bullish ah this one connector-ka uu noqdo inkastoo imbalance uu muuqdo suuqana uu haygan qaado macquul balse ma badna taasi waa overview guud dabcan ee euro aan ku falqeynaynay 4 hour-ka 1 hour-ka hadda marka update-kiisa sidan ayuu inoo yahay insha Allah waa bullish jihada waqtiyada soo aadan weegan ilaa weega xiga wax macquul euro inay sare kac yar samayso sida aan hadda sheegnay oo aan ka filayno ugu yaraan in $120 ay la mid noqon karto ama la keeni karo boqolkii euro markaas kadib waay dhicitaanka laakiin maahan si degdeg ah ma haddadan ma ahan waxa sheegayno waa after 2 weeks ila 3 weeks waa inta ugu horeysa adiga ee bisha August insha Allah dabcan kilibkan ama fiidiyowgan intaas ayaa ugu talgalay euro inaan isla eegno insha Allah hadii aan idin raaciyo waxa la yiraahdaa article-ka dabcan this one 11 January this one waa daadashadii saddexaad oo wali sii socota oo dhaxsii maraysa update-keedana waa 21 June sida u jeedaanba this one waa 27 July markay bullish-ka ay soo bilowday walina waa ay socotaa this one waa yesterday ama 29 July euro short term-ka ama 1 hour-ka wali waa inoo bullish duwan la yaraa sidoo kale dadka nagu cusub ama qofkii nagu cusub waxaan u sheegaynaa insha Allah in aanu bixino qaybta subscription-ka lacagaha forex-ka iyo commodities-ka jihadooda suuqa qofka xor ayuu yahay system inoo gaar ayaa leenahay balse qofkii rabo oo system gaar haysto jihada uu galiyo waa uu naga qaadan karaa si uu fursad uga faa'iideysto qofkii isku iibsanayo 3 bilood dabcan discount ayaa jira oo uu ka faa'iideysan karaa intaas waa qaybta subscription-ka sidoo kale waxaa bixinaa educational products oo uu qofku ka heli karo aqoontan aan anaga suuqa ku eegno ma aan Elliott Wave ee qalalan 5 daqiiqo iyo 3 daqiiqo waxa anaga ku trade gareyno
waxyaabo badan ayaa jira oo qofku ku baranayo educationka waan kaga duwanahay dadka insha Allah qaybtan oo isku diiwaan geli karaa bishan August ayadana course ayaa bilaabanaysa qofku u baahan halkaas ayuu kaga faa'iideysan karaa educationkan in uu barto cilmigan oo uu arko suuqa sidaan u arkeyno dawaleera aad baad maasantihiin khayr baan idin rajaynayaa dhammaantiin fiidiyowgii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaynu ballanaa fiidiyowga xiga wassalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu